warbixintii halka aanu ka dhagaysanay xaqiiqatan horta maanta ma aanan fadhiyin koox sida yacni shaqadooda siyaasiga ahayd fulinta ahayd qaabkaad ugu shaqaynaysaan horta maanta inaad halka ma yani noogu wada imaataan anugu ma filayn oo waxaan salkan garaynayaa tii xildhibaanada qaar sida dhuban oo kale horey u mishan gareeyeen wasiir aamino waad mahadsan tahay tan kale waxa halku yaal qaar badan ayaan ka jawaabi karin sida degmooyin ayaad noo soo sheegtay waxaa kaloo noo sheegtay inay jiraan 15 mashruuc oo laga fuliyay degmooyinka qaar xagee laga fulinayaa nooma sheegi kartid waan ognahay waxaan qabaa gabi ahaan wasaaraddii arrimaha gudahu inay shaqadeeda gabtay waa sida xaqiiqdu tahay weeye wasiir ku-xigeenka waa maasanya xilligan adag ee lagu jiro wasaaraddu hoggaankeedu uma bixin umana shaqeeyo sidii saxda ahayd golahana waxaan ka codsanayaa si dhaqsaa inaan ugu yeeranno wasiirka isagana aan la xisaabtanno umana arka anigu inuu xilligii saxda ahayd wasiirka arrimaha guduhu uu yahay qofka ku habboon ee ummaddan u shaqayn lahaa wasaaradihiina kale aad baad mahadsantihiin shaqadiinnana waa ka warhaynaa waa mahadsantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkaan marka waxaana lagu soo gudbiseen waa ammaan oo keliya wixii inii hirgalay haddaad wax qabanayseen shaqadaas la qabteena waxay ahayd inaad caqabadihii halkaan ugula wadaagtaan caqabadahaasaa nooga hor yimid saasay nooga hor yimaadeen saasay wax u dhaceen iyo sidoo kale qorshahaasaan ka leenahay qorshahaasaa noo degan sidaasay waxay yihiin bay ahayd marka ma wax caqabada maba jiraan miyaa oo shaqadaas aad kala kulanteen sidoo kale qorshaba uma lehdin miyaayo waxa weeye maxaa qorshaha baarlamaanka gudahaan aad noola wadaagi weydeen hadda wasaaradda arrimaha gudahoo kale gudahaan wasaaradihii oo dhan horta waan haynaayo wax halkaas ii yaalaan waxaan kula xisaabtamayaan dhahaya kale wasaarad kasta aad gaar u weydiisid riboodkii ay soo gudbisay hase yeeshee haddee si guud ba hadda la isugu qaaday bullets baa laga soo qaatay wasaarad kasta hadda wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda ugu baaxad weyn weeye waxqabadkeeda dhan waxaa laga soo qaaday afar bullad keliya afar ma noqon kartaa marka waxba wasaaraddu ma qaban runtii inays waxba qaban maadaama wax waxqabadkana lagu soo koobay afar noqdo tan kale aan u soo gudbaya isla arrimaha gudaha weeye haddii saas la yidhi su-aal kalena sii raacinayaayo riboodkii hore nala siiyey waxaa ku jirtay in wasaaradda arrimaha gudaha ay samaysatay department of disaster management inay samaysatay maaraynta masiibooyinka qayb inay samaysatay qaybtaasoo waxa weeye awalna ay jirtay hay-ad u gaara oo madax bannaan oo arrimaha ka shaqaysa samaysashada marka arrinkaas wasaaraddu ay samaysatay waxay ka hor imaanaysaa sharciga lambar 10 oo soo baxay 15 bisha 9 2005 sidoo kale sharciga lambar 19 ee soo baxay bisha 9 2005 sidoo kale sharciga lambar 4 ee soo baxay 15 bisha 2005 ayana waa ka hor imaanaya marka intaasoo xeer inaad buriseen ood ka hor imaanaysaan ku talagalkiina ma ku talagal baa mise waani xogteeda aan haynin baan leeyahay su-aasha kale aan gudbiyaa waxa weeye markaanu guddiyada aan shaqaynayno wasaaradaha markaan rabno inaan la xisaabtano oo macnaha korjoogteen ku samayno shaqadii markaa socotay ma haysano kalamaanaa kulmin dhiid wax u qoran wasaaraddu waxaasay raacaysaa intaasoo shaqo intaasoo qorshay ka shaqaynaysaa kalamaanaa kulmin ma caqabad guuda wasaaraduhu ka kooban yihiinba adduunku ma leedihiin wasaarad kasta qorshe u qoran oo macnaha dee qof markuu shaqo gelayo xayndaa isku buu leeyahay duties of responsibilities baa la marka ma leedihiin adunku arrinkaasi ma leedihiin hadday leedihiin ma leedahay kartaan intaas kusoo gabagaynaya aad baa umahadsansan guddoonka iyo golaha iyo wasiirada sharafta leh ee habka dastuuriga maanta ku hor yimid baarlamaanka Puntland waa salaamaya marka labaad waxaan bogaadinayaa in haweenku ay ka muuqdaan hogaaminta dalka sababtoo maanta 5 wasaaradood waxaa muuqata in wasaaradda haweenku ay u tahay guddoomiye ama hormood halkan ka soo jeediyay taasi waxay cadaynaysaa
qaybaha haweenku ay ku leeyihiin arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda labadaba anigoo ogsoon markii aan dul joogtaynay wasaaradahan halkan fadhiya inta badan dul joogtadu macnaheedu waxay tahay in la kormeero runtii wasaaro badan oo wasaaradda hadda ay ka mid tahay amnigu wasaaradda warfaafinta wasaaradda cadaaladda siday ahaan jireen hadda ka hor iyo siday maanta yihiin faraq weyn baa u dhexeeya waxaan rabaa inaan su'aalahayga u soo ararto laakiin muuqaalka guud iyo imageka dowladnimo ee muuqdana inaan la inkirin baan rabaa mataqaanaa inaan su'aalahayga u soo dhigto waxaa muuqata khudbadihii halkan aan ka dhegaysanaynay markii aan dhegaysanaynay waxqabadka wasaaradda haweenku waxay baahisay dhammaan dalka oo dhan waxaan sir wax harabe markii maba jiraanba taasina waxay keentay intii dowladdan Siciid Cabdullaahi jiray dani in waxqabadka baahsan ee arrimaha bulshadu uu ugu horeeyo ay wax ka qabteen anigu qodobada aan u soo daadagaya waxay tahay mudana wasiir waxaan weydiinayaa Marwo Aamino wasiirka haweenka maadaama waxqabadkii arrimaha haweenka ee xagga bulsho uu taabagalay maxaa kaaga qorshaysan arrimaha siyaasadda waa ogtahay haweenku lafdhabar bay waxa u yihiin ummadeenna reer Puntland iyo Soomaaliya waxaa loo socdaa xilli hadda doorashooyinkii federaalku ay dhacayaan qoondooyinka haweenka ee ah 30% ma ku baraarujiseen odayaasha dhaqanka nabadoonnada iyo xukuumadda in haweenka siyaasadda qaybtii ay ku lahaayeen ay ka qaateen qodobka labaad oo aan weydiinayo maadaama wasiir aad sida aad sheegtay wasaaraddaadu ay xukunto ama ay hormood ka tahay dad nugul haweenkii carruurtii ma jiraan qaab aad kula dagaalantid musuqmaasuqa oo wax yaroo haweenka loogu talagalay kullay intaan hadda ka maqlanay wasaaradda shaqaalaheeda iyo agaasimayaasheedu isbeddel weyn baa naloo sheegay waxqabad leh laakiin sidee baa ula dagaalantaa musuqmaasuqa iyo in ururada haweenka oo kala duwan aad ogtahay sida aad sheegtay gobollo badan ka dhisan sida aad isugu keentay siyaasi ahaan iyo fikir ahaan wax ma nooga taaban kartaa mudane wasiir waana ka baxay waxaan u malaynayaa su-aasha qaybtii hore waan qaatay waxaan caddaynayaa inaan idinla qabo ama wasaaradda haweenku idinla qabto dareenka ah inay guddiga xuquuqul insaanka iyo wasaaraddu wada shaqayn dhow ay yeeshaan tusaale ahaan waxaa jira shuruuc aan u baahannahay inaan u qareenno oo sidaad ogtihiinba shuruucda hadda siinaysa ama u oggolaanaysa haweenku inay siyaasadda ka soo qayb galaan walow dastuurkeenna uu caddaynayo qodobo badan oo ku jirta xuquuqda bini'aadanka iyo in loo siman yahay wax kasta oo adeega ama arrimaha bulshada siyaasadda iyo kuwa dhaqaalaba haddana sidaynu ognahayba dhaqamada soo jireenka iyo waxyaabo badan oo kale caqabado badan oo jira ah ma suuroobayso inay haweenku ama xilligan oo lagu jiro in xildhibaanada la soo doorto haween badan ay siyaasaddii ku soo biiraan xilligan aan ku jirno xilli doorasho oo dowladda federaalku ay maaragta la isku raacay doorasho dadban la sameeyana loo baahan yahay doorkii haweenka in kor loo qaado waxaynu u baahannahay shir ay guddoonka baarlamaanku inala galaan oon soo barboos garaynayno oo arrintaa aynu si hoose ugu lafagurno sababtoo ah caqabadaha kulankan 1 iyo 2 kuma sheegi karno maadaama idinkuna aad dareensan tihiin baahida loo qabo wada shaqayn annagana u qabno waxaynu malaha aynaan weli isla fahan approachkii aan ku wada shaqayn lahayn laakiin waa naga go'an tahay xukuumadda maanta jirtana waa mid soo dhaweynaysa inay maaragtay la isla wada shaqeeyo marka insha Allah shirar badan oo aynu ku qabanayno aynu ku soo gabagabeynayno hawlahaas baan soo dhaweyn lahaa oo goob joog ayna ka yihiin maamulka baarlamaanka oo aan ka codsanayo maanta in kalfadhigan caqabadahaas lagu soo xiro aynu kala tabanayno ama naga tabanaysan taa halkaas aan uga baxayaa xildhibaan Dhaashane wuxuu ka hadlay iyadana qoondada haweenka iyo maamul wanaagga iyo musuqmaasuqa sidii maaragtay wasaaraddu ay door uga qaadato xildhibaan Dhaashane waxaa noo qorshaysan in qoondada haweenka ama aan u ololeynaynaa aan kulamadii hadda 3 bilood oo la soo dhaafay isdaba jooga odayaasha dhaqanka aan la yeelanayno guddiyada kala duwan oo jira oo guddiga doorashooyinka aan la yeelanayno haweenka laftigooda aan la yeelanayno xukuumadda maamulka ugu sarreeyo oo madaxweynuhu ugu horeeyo
iyo madaxweyne ku-xigeenkaba aan la yeelanayno oo aan u ololeynayno in maaragtay la helo qoondo go-an oo haweenku ay ku tartamaan xilligan oo doorashadu ay soo dhowdahay. waxaa naga go-an haddii aad nala riixdaan oo maanta idinka codsanayaa golaha shacabka inay gabdhuhu matalaaddoodii ay maqan tahay, ha noqoto golayaashii deegaanka oo maaragtay in badan waa loo ololeeyey laakiin ma jiro sharci gooni oo haweenka favor siinaya ama soo dhaweynaya maaragtay inay ka qayb qaataan inagoo og dhaqamadeena iyo maaragtay in haweenku badanaa dib loo dhigo. mashaariicda maaragtay 15 mashruuc halkaan lagu xusay waxaan siinayaa wasiirka, dabcan waxaa laga turjumayaa GBLG-ga iyo meeluhu jiro ka jiro. waxaanse idin sheegayaa si horudhaca la idinla wadaagayaa mashruuca GBLG-ga la yiraahdo oo ka jira 9 degmo ka shaqeeya sanadkan waxaa lagu talagalay in 2 degmo kale lagu siyaadiyo. waxaana mas-uulka oo arrintaas oo dhan coordinate gareeya waa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka champion office-ka oo isaguna madaxweyne ku-xigeenku uu dadaal badan ka wado sidii maaragtay deegaamada aan ahmiyada badan la gaarin meelaha kale oo adeega u baahan degmooyinka soo jireenka iyaguna ay qayb uga noqdaan horumarka loo gaarsiiyo. su-aasha koowaad oo xildhibaankuna weydiiyey haddaan ka jawaabo oo ahayd waxqabadkii wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta oo runtii wasaarad weyn ah oo hooyada wasaaradaha ah. waxqabadkeedii waxaa lagu soo koobay hal bej. sidaan wala ognahay wasaaradda waxaa loo qeybiyey maxaa la dhahaa shaqooyinka wasaaradda waxaa loo qeybiyey 4 sector. sectorkan oo ah sectorka arrimaha gudaha iyo amniga, wasaaradihii isku shaqooyinka ahaa ayaa sectore la gelageliyey. inta halka isla fadhino hal sector baan ku jirnaa. wasaaraddu waxay soo gudbisay 16 waxqabad oo halka aan ku hayaa. haddaad waqti haysaan waan ii akhrinayaa. warbixin guddiga waxaa lagu soo koobay priority of priority qodobadii ahamiyadda ay u arkayeen guddigu inay u soo bandhigaan baarlamaanka ayaa la soo gudbiyey. 16 qodob oo waxqabadka wasaaradda intaan joognay waa haynaa, waana inii dulmari karnaa haddaad naga codsataan. taas waa mid. su-aasha labaad oo ahayd waxaa jirta hay-ad ka shaqaysa arrimaha samafalka ama arrimaha bini-aadnimada. wasaaradduna waxay samaysatay waax la yiraahdo waaxda arrimaha bini-aadanka iyo maareynta musiibooyinka. arrinkaasna siduu xildhibaanka sheegay waa arrin jabinaya dastuurka. hay-adda hadma waxay haysaa shaqadii wasaaradda. iyada waxaa loo idmaday keliya inay research daraasad ay ka soo samayso markay musiiba ay dhacdo. roobabka iyo waxay saameeyaan, abaaraha iyo waxay saameeyaan, kadibna ay u soo gudbiso wasaaradda arrimaha gudaha. wasaaradda arrimaha gudaha ay la wadaagto daraasadda ay hadma ay soo samaysay hay-adaha caalamiga ah iyo golayaasha dowladda. sidaa darteed waxaa la sameeyey guddi kala xadeeya shaqooyinka hay-adaha madaxa bannaan iyo shaqooyinka wasaaradaha. guddigaasaa weli ku jira sidii loo kala xadeyn lahaa, maadaama shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha oo ahaa inay iyadu daraasadda ay soo gudbiso ama shaqada ay maxaa la yidhaahdaa researchka oo shaqadeeda mandatekay ku leedahay ay u soo gudbiso wasaaradda arrimaha gudaha ayna ay toos hay-adihii ula xiriirto. horta halkaasay shaqooyinka iska gelayaan. shaqooyinka waa la kala leeyahay. 15 degmo oo uu yiri xildhibaanku mashaariicda 15 oo ka kala socda waxa weeye mashaariicda GBLG oo degmooyinka halkan ay ku
ku xisan yihiin waa Garowe, waa Galdogob, waa Galkacyo, waa Bursaarax, waa Qandalo iyo qaar ka mid ah degmooyinka GBLG. sidoo kale mashaariic oo horumarineed waxay wasaaradda arrimaha gudaha hadda ka socda ay ka fulinaysaa degmada Dhaxar, Baran, Burtine iyo Boosaaso. horta 15 mashruuc degmooyinka halka aan ku xusnay ayay ku jiraan. xildhibaan Aways wuxuu weydiiyey su'aal caam ah oo ka hadlaysa caqabadaha iyo qorshayaasha wasaaradaha. run ahaantii xoogga waxaa la saarayay in waxqabadkii lasoo bandhigo. way jiraan caqabad, laakiin kolley wasaarad walba caqabad gaara iyo bay leedahay. caqabado guudna way jiraan marka laga eego culayskii xanuunkii sanadkan ku habsaday adduunka ee COVID-19 oo runtii waxqabadkii iyo dhaqaalihii caalamka oo dhan dhibaato weyn u geystay. saameyn badan ayuu ku yeeshay waxqabadka dowladda guud ahaan iyo wasaaradaha gaar ahaan. taas waa dhinaca caqabadaha. wasaaradda cadaaladda haddaan ka warramo si gaara, waxaanu qorshaynay markii xukuumaddani ay qabsatay dalka in aanu bil walba qabanno kulamo joogto ah oo aanu qabanayna bahda cadaaladda wax lagu magacaabo coordination meeting. ilaa iyo hadda 15 kulan ayaan u qabanay bahda cadaaladda. waa wasaaradda, waa garsoorka, waa xabsiyada, waa maxaan ku idhaahdaa CID-da, waa adeegyada sharciga xarumaha bixiya iyo bahwadaagta cadaaladda ama ha noqdaan UN ama ha noqdaan hay-adaha kale NGO-yada ama internationalka iyo kuwa maxalliga. dhammaantood waxaan isugu keeni jirnay wasaaradda cadaaladda. waxaan laga wada hadli jiray guud ahaan baahiyaha iyo caqabadaha ka jira iyo sida wax loo qaban karo maxaan ku idhaahdaa bahda cadaaladda.